بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا وناسن داوديل waxaad ku soo dhawaataan warkii galabnimo ee telefishinka caalamiga Universal oo idin ka imaanaya studio telefishinka ku leeyahay magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland waxaanaad ku soo dhawaataan qodobadii warka galabnimo ugu door korona wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta Somaliland ahna gudoomiyaha guddiga dib u dhiska suuqa Wahen ayaa sheegay in xukuumadda Somaliland ay ganacsatadii u fasaxday in ay dhistaan goobahoodii ganacsi xisbiga mucaaradka wadani oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in ay xisbihaan soo dhaweeyeen go'aankii ka soo baxay guddigii ganacsatada Somaliland ee isku xilqaamay xal u helinta khilaafka siyaasiga ee ka jira dalka waxa sidoo kale intuu warkan uu socdo aad ku daawan doontaan magaalada Gabilena waxa maanta xabsigeeda dhexe laga sii daayay tiro haweena oo lagu soo qabtay mudaharaadyadii ka dhacay magaalooyinka waaweyn ee dalka sidoo kale waxaad warkeena galabnimo aad ku daawan doontaan 23 qof ayaa waxay ku dhinteen dagaalo ka dhacay magaalada Tripoli ee caasimadda dalka Liibiya halka tiro intaasi ka badan ay ku dhaawacmeen dagaalo dhexeeyay xukuumadda la aqoonsan yahay iyo kooxaha mucaaradka daawadayaal kuwaas waa qaar ka mid ah qodobada warkeena galabnimo ee telefishinka Universal waxaanaad ku soo dhawaataan warkiyo fidsan